madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa isagoo ku hadlayay magaciisa ka shacabka ka dawladda iyo ka golayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhabaal tacsiya u dirayaa qoyska qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda Kenya uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Mudane Raila Odinga oo maanta ku geeriyooday dalka Hindiya. Dhabaalka tacsida ah ee uu ku saxan yahay afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr ayaa u dhignaa sidan تعسيق قرن جريدة Raila Odinga مدعونها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو isagoo ku hadlaya magaciisa ka shacabka ka dawladda iyo ka golayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tacsiyo u dirayaa qoyska qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda Kenya oo ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Mudane Raila Odinga oo ku geeriyooday dalka Hindiya. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu geerida Raila Odinga ka tacsiyeeyay dhammaan shucuubta iyo dawladaha qaaradda Afrika. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu Raila Odinga ku tilmaamay inuu ahaa geesi halgamaa iyo hogaamiyaha haldoora oo ka baxay qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaan geeska Afrika isagoo ku suntanaa difaaca dimuqraadiyadda Afrika. Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa Raila Odinga ku sifeeyay saaxiib qaali ah oo ay weyday jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo xusay in Raila Odinga uu ahaa siyaasi aragti dheer aqoon durugsan u lahaa siyaasadda caalamka isla markaana si dhab ah u fahansanaa qadiyadda himilada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka iyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mar kale tacsiir qaran u dirayaa qoyska asxaabta shacabka iyo jamhuuriyadda Kenya iyo gebihaba qaaradda Afrika. Ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu Raila Odinga ku tilmaamay inuu ahaa geesi mayal adag oo halbeeg u ahaa cadaaladda codka dimuqraadiyadda iyo midnimada qaaradda Afrika. Cabdicasiis Ciidiid Cilmi warbaahinta qaranka.